taariikhdaas aan ka soo sheekeeyay horumarka waxa gaarsiiyey waa hoggaan Puntland waxa ay kaga duwan tahay Soomaaliya inteeda kale oo aan rajeynayno inay ka baxdo waa hoggaankaas mas'uulka ahaa oo dadkiisa u naxayay oo danihiisa ka shaqaynayay iyo dadkiisa ku kalsoonaa hoggaankooda oo horumarkaas la garab taagnaa waxaan aad ugu digayaa dadka danaynaya inay bulshadan burburiyaan inay hoggaankeeda wiiqaan inay dadka dhalinyarada ah ay ku kiciyaan waxaan munaasab ahayn in aan hoggaan u fiican yahay Puntland baa daliil u ah waxaan qirayaa ninka ku heesay Puntland ku dayo inuu wax wanaagsan sameeyay inay nagu daydaan waxay munaasab ah ma aha in dadka la hareer mariyo mana aha dadka in aan waxaan jirin loo akhriyo ilaashadaan aad bay muhiim u tahay in dalka horumarkiisa si midaysan looga shaqeeyo waxaana runtii cadaynaynaa inaana cid reer Puntland ay ka ogolaan karin inay nidaamkeeda burburso taana in hoosta laga xariiqo waa muhiim guul iyo gobonnimo aan rajaynaa waa mahadsantiin